education platform. بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا كالنكا وحبرشا قلم education platform anigoo bare Cabdullaahi Maxamuud Xasan macalinka maadada xisaabta ee fasalka 8aad waxaan maanta qaadan doonaa laba darsi oo ku saabsan ama laba cashar oo looga hadli doono fogaanta xariiqda fogaanta u dhaxayda laba barood iyo qaybinta xariijin haddaba labadaas cashir ayaan maanta wada qaadan doonaa oo ahna yani gabagaba iyo gunaanad u noqonaya casharada aan ku qaadanayno fasalka 8aad maanta marka inoo noqon doonto khatinkii haddaba dhegaystayaal ama daawadayaal ku soo dhowaada cashirkeena online-ka ah بسم الله الرحمن الرحيم عشركنا online عشرك لباد فوقانتا udhaxaysa laba barood fogaanta udhaxaysa laba barood annaga oo ka faa'iideysanayna aragtidii Pythagoras waxaa lagu helaa fogaanta udhaxaysa fogaanta udhaxaysa laba barood sida tan ayaa lagu helayaa da oo fogaantii noo matalaya da oo fogaanta u dhaxayda labadii barood waxay la mid tahay xa'da barta labaad oo laga jaray xa'da barta koobaad oo laba jibaaran oo loo geeyey ya'da barta labaad oo laga jaray ya'da barta koobaad lamaanaha horsan oo waxay kala yihiin xa ya waa isla socdaan xa'da ya'da koobaad iyo xa'da iyo ya'da labaad isla socdaan waxaana la yiraahdaa lamaanaha horsan marka xa'dan iyo xa'dan waa kala jaraynaa ya'dan iyo ya'dan waa kala jaraynaa okay xididkaas waana laba jibaaraynaa haddaba ba'da pointiga ba waa kan halkaan noogu xusan waa wuxuu la mid yahay xa iyo ya halka ba'dana ay la mid tahay xa'da labaad iyo ya'da labaad okay waa laba bar labadaas pointi fogaanta u dhaxayda marka aan rabno inaan raadino marka halkan hakad waa hakad pointiga marka hakad lagu matala ka jarmaya sax ma aha ka jar waxay in la dhahaa waa ya iyo xa okay xa'da oo pointiga koobaad kan marka pointi koobaad ayuu noo matala haddaba marka xa'da inta pointigan iyo pointigan farqiga u dhaxeeya waxay noqonaysaa xa'da labaad oo laga jaray xa'da koobaad absolute value ayaa la geliya oo yani negative ma soo baxayo maadaama waxa la cabiray fogaan iyo distance ay yihiin okay ya'da labaadna ya'da koobaad laga jaraa oo ayadana waxay noo matalay jooga kana wuxuu noo matalaa jiifka ayuu noo matalay okay labadaas marka laba jibaaran ayaa kanuu laba jibaaran oo lagu daro kanuu laba jibaaran xididka saarena waxaana noo soo baxaya labada dhinac fogaanta isku jiraan ama labada bar su-aashana la siiyey waxaana la dhahay barta koobaad waa hal taban iyo 4 iyo barta labaad oo hal taban iyo 6 haddaba waxaa raadisaa fogaanta labada bar u dhaxayda haddaba si labadaas fogaan aan u raadino waxaynu sameeynaa qaacidadii ama formulihii ama yani qaacidada aan soo qaadanay fogaanta waxay dhigaydaa xa'da labaad oo laga jaray xa'da koobaad oo laba jibaaran dhamaan laba jibaaran oo loo geeyey xa'da ya'da labaad oo laga jaray ya'da koobaad oo laba jibaaran taas marka waxay noqonaysaa sida tan haddaba intaa oo dhan markaan eegno marka xa'da labaad waxay la eg tahay markaa fiirino waa xa'da labaad waa -1 ama hal taban laga jaray xa'da koobaadna waa -1 kan waa xa'da koobaad
حاء كوبات كان واحد لبات كان ويا كوبات كان ويا لبات سيده وكلا هوريان هذا waxaadena marka xaada koobaad hadii ay -1 ay tahay xaada labaadna waa -1 labada xaaba waa -1 intooda marka square garay okay lagu daray yaada labaad waa imisa waa 6 yaada koobaadna waa 4 waa 6 laga jaray 4 ay noqonaya waxaan qaadanaynaa marka labada markay farqiga u dhaxeeya -1 ilaa minus plus 1 oo laba jibaaran oo loo geeyay okay intaas waxa u geeynaa 6 laga jaray 4 oo ah 2 laba jibaaran haddaba marka inta ay noo noqotahay labadan kale jirkooda waxaa noo soo baxay eber laba jibaaran oo loo geeyay laba jibaaranna 4 loo geeyay eber oo 4 waxayna uga baxaydaa 2 haddaba waa 2 halbeeg sidaas ayaa noo soo baxaydo tusaalaha labaad raadi fogaanta u dhaxayda labada barood 5 hakad 3 iyo 1 hakad ma 12 marka 5ta waxaa dhahayna marka si aan u helno kuwan marka waxaa dhahayna 5ta waxay noogu taalaa waxay noogu taalaa xaada koobaad marka xaada koobaad waxay la eg tahay 5 xaada labaadna waxay la eg tahay 1 yaada koobaad waxay la eg tahay waa 3 yaada labaadna waxay la eg tahay -2 haddaba si aan u xisaabino waxaynu leenahay marka sidaan formulaheeni ama qaacidadeeni aan soo baranay da waxay la mid tahay xa laga jaro xaada labaad oo laga jaro xaada koobaad oo laba jibaaran oo loo geeyay yaada labaad oo laga jaro yaada koobaad oo laba jibaaran waxaynu leenahay marka 5 hal xaada koobaad oo 1 ah oo laga jaray 5 laba jibaaran oo loo geeyay yaada oo ah -2 yaada labaad oo laga jaray afwan oo laga jaray 3 oo ah yaadii koobaad intadooda dhammaantood oo xidid laba jibaaran ku jira markii aan kala jarno waa -4 laba jibaaran oo loo geeyay qaadaan isu geyntoodana waxay noqonayaa -5 oo laba jibaaran -4 laba jibaaran wuxuu la mid noqonayaa 6 iyo 10 oo loo geeyay 5 laba jibaaranna 25 intaba waxay la mid yihiin 41 oo ku jirto xidid haddaba 41 markii xididka aynu ka saarno waxay la mid noqonaydaa qiimo ahaan xidid 41 waa 6 dhibic eber okay 6 dhibic 4 eber halbeeg
halbeegan centimeter oo noqon kara meter oo noqon kara iyo wixii la mid ah. Okay, waxqabadka labaad waxaan raadinayaa fogaanta u dhaxayda baraha soo socda 3 iyo 5 iyo 3 iyo 7 -1 iyo 2 iyo -4 iyo 2. haddaba raadi. waxqabadka saddexaad waxaan raadinayaa fogaanta u dhaxayda baraha soo socda. Layli, raadi fogaanta u dhaxaysa laba barood kasta ee soo socda. Layli, halkaas marka aan waxaan ku khatinay cashirkeeni labaad aan uga hadlaynay fogaanta u dhaxayda laba barood. haddana waxaa insha allahu tacaala aan gudageli doonaa cashirkeeni saddexaad. waxaan uga hadli doonaa qaybinta xariijin ay leedahay. qaybinta xariijin bimacnaa xariijin lagu siiyey ee habkii loo kala bari lahay. kusoo dhawaada marka cashirka saddexaad idinkoo mahadsan. daawasho wacan. sidee ayaan ku heli karnaa barbartameedka xariijin? barbartameedka xariijin. barbartameedka waa bar dhacda bartanka xariijin una qaybiso laba fogaan oo isku mid ah. waxaa lagu astaameeyaa sumadda ma oo laga keenay mid pointy. oo waa maxay mid pointy? barbartameed. barbartameed waa mid point kana u adeegsanayna. okay, waxaa lagu helaa barbartameedka xariijin ay labadeed barbartameedka xariijin ay labadeed bar dhammaad yihiin a oo intaan ah iyo ba oo intaan ah qaanuunka soo socda ama xeerka soo socda. qaanuunkani waxa uu dhigayaa bointiga ama ma inay la mid tahay. ma waxay la mid tahay xa'da koobaad oo loo geeya xa'da labaad oo la kala baray koma ya-da koobaad oo loo geeyay ya-da labaad oo laba loo qeybiyo la kala baray. sidaas ayaa lagu helaya. haddaba haddii bointigan yahay a bointigan uu yahay ba xariiqda marka bartanka bointiga bartanka ku dhacaya barbartameedka waxaynu ku helaynaa marka inaan labada xa isku darno oo laba u qaybino. labada afwan waa khalad sawirka qaabka u qoranya waa xa'da koobaad iyo ya-da koobaad. bointi kastana ogaaw iyo kaa hoos bixin. bar kasto waxa uu ka samaysan yahay laba lamaana horsan oo kale ah xa iyo ya. bartaan xa'da labaad ya-da labaad sax. bartaan xa'da koobaad ya-da koobaad. marka inuu xa inta dhaa qalado. marka xa iyo xa isku dar laba u qaybi. ya iyo ya isku dar laba u qaybi. habkaas ayaan uga shaqaynaynaa barbartameedka. tusaalaha koobaad haddii waxa aad raadisaa barbartameedka xariijin ay labadeed bar dhammaad yihiin. labadeeda bar dhammaad ay yihiin jihiin ma yihiin waa ka labadan bardhamaada lagu siiyey. labadan bardhamaad marka sidee ku heli kartaa marka? okay, waxaa dhehna marka labada bardhamaad qaacidada aan ku heli jirna maxay? xa'da koobaad oo loo geeya xa'da labaad oo loo qeybshay laba iyo ya-da koobaad oo loo geeya ya-da labaad oo loo qeybshay laba. xeerkaas baa lagu raadiyaa. okay, haddaba xeerkaasi anagoo adeegsanayna aan samayno inaan helno formulaha ama qaacidada. okay, waxaa dhehna marka xa'da koobaad maxay la eg tahay -1. xa'da labaadna waa 3 oo laba u qaybi. ya-da koobaad waa -2. ya-da labaadna waa -4. haddaba laba u qaybi. waxaynu dhehnaa marka -1 iyo +3 ama 1 taban iyo 3 togan. waxa haddii la kala jaro waxaa soo baxaya 2.
هل خسارة أي سدح فائدة لبا أي صباحي لأن خسارة فائدة أي جرى لبا وغيب لبا خسارة لبا فأفر خسارة وجي ولا خسارة بدتي لبا وغيب وهل لح لبا وغيب وسدح خساره نو كلبر فائدة نو كلبر سيدان ayaa noo soo baxaydo marka kan wuxuu noqonayaa waa bartameedka oo labadiisa dhinac dhamaad ay yihiin -1 iyo -2 iyo 3 iyo -4 wax qabadka labaad waxaan raadinayaa bartameedka xariijinta okay ay leeyihiin baraha soo socda okay waxa aan raadinayaa bartameedka xariijinta barahan maraysa macnaha waxa ku heshaa marka qaacidadii aan hadda soo maraynay in ay isu geeydo labadan isu geeydo mid kasta ka mid ah laba u qaybi habkaas u shaqeey tusaalaha labaad haddii bartameedkii 3 iyo -2 ay tahay bartameedka aba ay leedahay bilowga xariijintana ay tahay 1 iyo 5 haddaba raadi bardhamaadka iyo raadi bardhamaadka iyo waa sahlantaa marka habka loo xalinayo okay habkee u xalinaynaa la soco okay waxaan dhihi jirnay qaacidadeennii midpointiga ama bardhamaadka waxay la eg tahay xa'da koobaad oo loo geeyey xa'da labaad oo loo qeybshay 2 ya-da koobaad oo loo geeyey ya-da labaad oo loo qeybshay 2 sidaas ayaynu ahaa jirta midpointiga waa laysiiyey macda waxaa la dhahay waa 3 iyo 2 waa 3 iyo 2 xa'da koobaadna waa laysiiyey ya-da koobaadna waa laysiiyey waxaan dhahayna marka xa'da koobaad waa hal loo geeyey xa'da labaad oo aan la ka saynin oo loo qeybshay 2 ya-da koobaad waa laysiiyey waa 5 ya-da labaadna waa layga qariyey raadi baa la yidhi okay oo loo qeybshay 2 haddaba sawirkan markaan fiirino aan adeegsano lamaanaha horsan waxaan dhihi karnaa qaybta hore qaybtan wuxuu ka kooban yahay qayb xa oo 3 ah iyo -2 oo ah ya-dii la kala baray haddaba marka labada qaybood waa kala qaadayna marka qaybtaanna waxaa la ekaysiinaynaa 3 qaybta hakadka ka dambeeyana waxaan la ekaysiinaynaa qaybta hakadka ka dambeeya ama komada ka dambeeyda waxaa sameeynaa marka sidaan okay cadheena marka hal lagu daray xa oo loo qeybshay 2 waxay la eg tahay 3 5 lagu daray ya-da labaad oo loo qeybiyo 2 waxay la eg tahay -2 marka meeshaas ay noo joogto waxaanu dhahaynaa kan hooseeyihiis waa 1 kan hooseeyihiis waa 1 waxaan sameeynaa marka si isweydaara inaan iskugu dhufano kana sidoo kale isweydaar iskugu dhufano markii isweydaar la iskugu dhufto marka la iskugu dhufto waxaa noo soo baxaya hal lagu dhuftay xa'da labaad hal lagu dhuftay xa'da labaad 2 markii 3 lagu dhuftana waxay noqonay 6 waxaanu dhahaynaa marka xa'da labaad waxay la eg tahay 6 laga jaray 1 xa'da labaad waxay la eg tahay 5 haddaba xa'da labaad saas ayaan kusoo helnay
inta markaa imaano sidii oo kale iskugu dhufano hal intaa ku dhufano 5 loo geeyey ya-da labaad waxay la eg tahay 2 lagu dhuftay 2 waa 40 waxaanu dhahaynaa 5 عفوا ya-da labaad waxay la eg tahay -4 oo laga jaray -5 ya-da labaad waxay la eg tahay -9 intaas ayuu noqonayaa okay kadib markaas waxaa go-aan gaaraynaa maadaama barta a-na la siiyey waxaa naga maqan barta ba waxaynu dhahaynaa barta ba waxay la eg tahay xa'da labaad hakad ya-da labaad oo markoodana la mid ah 5 iyo -9 halkaas marka xalka aan ku soo khatimaynaa haddaba marka laga shaqeeyo xa'dii waxaa soo baxday xa'dii labaad 5 xa'dii labaad waxaa soo baxay 5 ya-dii labaadna -9 ya-di waa ya baa la rabay halkan ya baa lagu shaqeynaya minus okay inta waa ya cafwan qalad ya-dii labaad okay ya-dii labaad kana wuxuu noo matalaa xa'dii labaad oo naga maqneyd waxqabadka labaad waxa aan raadinayaa bartaba haddii bartama ay tahay barbartameedka xariijinta ahba intaan la eg tahay ana intaan la eg tahay haddaba ma bartameedkana waa lagu siiyey ana waa lagu siiyey marka waxaa maqan ba maqan kana sidoo kale la mid laakiin ogaaw kan waa 1.3 maya hal hakad 3.5 sidaa layli raadi barbartameedka xariijinta isku xirta baraha soo socda marka meeshaan 5.10 ay qoran tahay waxaa ka maqan qaybtii bartameedka barta kale ayaa maqan barta kale waxaa uga dhigtaa cafwan barta kale waxaa uga dhigtaa 0.0 marka barbartameedka waa la raadi karaa marka okay waayahay halkaas assalaamu calaykum halkaas marka waxaan ku soo khatimaynaa daawadayaal ardayda qiimaha badan mudan waxaan soo khatimaynaa cutubkii 8aad oo ah khatinka ama gabagaba iyo gunaanad u noqonayo fasalkii 8aad ee noo soo socday muddo noo soo socday halkaas maanta aan ku soo khatimaynaa ku soo gabagabaynayna waxaa iga dardaaran ah dhammaantiin inaa insha Allah isku daydaan layli iska buugga uu leeyahay inaad ka shaqeydaan oo xalidaan wixii yani oo problem ama loo baahdane yani aad kala soo xiriiri kartaan qalam education platform aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh